marka caanaha la soo liso gorofka horta caruurt wuxuu ka horreysiiyaa yaryar wixii u soo hadha ayuu qaataa marka ninka intaas soo wasiir leh odayna gobolka ka wixii u soo hadhay buu qaadanayaa xukuumaddiisii iyo madaxweynihiisii baa u dhashay bismillaahi raxmaani raxiim waa goor gaaban hadalkeedna gaaban baa la yidhi marka hore qof kastoo halkan fadhiya waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo maamuuska uu xambaarsan yahay salaanta guudna waxaan ku hagaajinayaa wasiirkeenna arrimaha gudaha cabdalle maxamed carab waxaa kaloo dhaqankana u salaamayaa guddoomiyaha guddida beelaha galxajiis xildhibaanada iyagana waan salaamayaa wasiirada halkan fadhiya dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka intaa marka laga yimaado hadalkayga waxaan u horreysiinayaa inaan hambaliyeeyo maayarkii shalay aynu doorannay axmed ciisood ayaan halkan isagana duco iyo hambalyo uga diraya inuu ilaahay ku asturo xilka aynu u doorannay inuu ilaahay ku asturo ayaan cabdalle maxamed carab go-aankii uu ka qaatay doorashadii halkan ka dhacday golaha deegaanka habeenkii laba habeen ka hor intii aanay istooran golaha deegaanku baan madaxweynaha isugu nimi gurigiisa waxaan ku yidhi madaxweyne gebile markii isbeddelku dhacay markii hore meeshii noogu adkayd bay ahayd iminka isbeddelku markuu dhacay aad bay noo soo dhoweeyeen waxaan marti kaaga ahay in aad dadkii nooga reebto xisbigii kulmiye oo sida arrintaas inaanay keenin in gobolkii dib u noqdo way noo soo dhowaaday waxaan filayaa go-aankii madaxweynaha iyo ay qaateen wasiirkii arrimaha guduhu inuu taa ku aadanaa halkanna runtii waan ku ammaanayaa wasiirka waxaa kaloo annaga noo sharaf ah in aanu isdoorannay oo golahaygii deegaanku isaga doorasho ka timid uu isku doortay xisbiguna taa tixgeliyey iyo xukuumadduba intaa marka laga yimaado waxaan aad u ammaanayaa kooxdii halkan xisbiga kulmiye u joogtay ee uu odayga u ahaa cabdikariim aadan iyo walaalkay aamiin oonu annagu dadka mar walba isaga dhoweyn annagoo haddana siyaasadda iyo aragtida ku kala duwan waxay qaadeen biladii muxuu ahaa qiyamka iyo tii geesinimada waxay garteen in xisbigoodii laga guulaystay gacantaanay soo fidiyeen waxay yidhaahdeen waar aynu isku dacaynay meeshii la wareega waa idinkaa rag baa ilaa iminka xisbiyadii kale ku jira kulmiye ah oo dee raadinayaba inay halkanna u soo wareegaan runtii anigu taa ma dhiiri gelinayo aragti fiicanna maaha marka geesinimada waan ku ammaanayaa walaalkay aamiin iyo raggiisii la socday ee xildhibaanada ahaaba waxaa kaloo aan odayaasha uga mahad celinaya halkan ka hadlaya reer gabiley waxay yidhaahdeen xukuumadda waanu la shaqaynaynaa hadalkaa hoostaanu ka xariiqaynaa waa ku mahadsantihiin madaxdeedii dhaqanka haddaad tihiin aad iyo aadna runtii arrintan waanu ugu diirsannay waananu idinka filayna markii aanu ku jirnay ololaha iyo 10kii sanneenu mucaaradka ahaynba gebile meesha noogu adag bay ahayd laakiin maalintii doorashadu dhacday meeshii noogu soo dhoweynta badnaydkeeda meelo kale jabhadaan laga sheegay dhulkii kulmiyada ee laga taageerayey mudaharaadbaa ka dhacay laakiin reer gebile waxay yidhahdeen xukuumadda ha lala shaqeeyo ciddii la shaqayn weydana annagaa wax ka qabanayna runtii sharaf bay noo ahayd waanad noo hiilisaa wixii hore oo dhan markaa intaasaanu ku ilowray aad baa u mahadsantihiin intaa marka laga yimaado waxaan u ducaynayaa walaalkay maxamed cabdilaahi boos iyo walaalkay cabdirasaaq quunno oo iyaguna maanta mas-uuliyad culusi fuushay mas-uuliyaddaasi waxa weeye dee shalay mucaarid baynu ahayna way fudud tahay markaad dibadda joogto inaad dhaliisho maamulka markaa meesha jooga iyo weliba maayer axmed ciisood markaa maanta waxayna fuushay mas-uuliyad culus saaxiibadeenna waxay yidhahdeen waabaanu idinla shaqaynaynaa iyaguna way ku mahadsan yihiinoo haddaad naga roonaateen dee waanu idinka mahad celinaynaa libtaana waanu idin siinaynaa taana waanu idinka mahad celinayaa cabdikariin aadan oo isna halkan muddo dheer ka soo shaqaynayay shaqo fiicanna qabtay ilaahay waxaan uga baryayaa isaga iyo raggaa kale ee kulmiye ee shaqaynayeyba inuu ilaahay maaragtay halkaa ka sii wadaan siyaasadooda iyo wax khayr qaba laakiin waanu idinka mahad celinaynaa wixii aa qabateen wixii aagahajiseena guulaan oonu kusii dul dhisaynaa wixii ayadaan gaadhinna waxay u taallaa saaxiibadeeda halkan loo igmaday intaa marka laga yimaado waxaan jeclaa inaan ka hadlo qoladeeda imanaysa ku dardaaro gobolku
had iyo jeer marka gobolka Gabiley la yiraahdo Gabiley ku soo rara magaalada caasimadda waxaad aad isaga xil saartaan lixda degmo ee kale ee gobolku ka kooban yahay gaar ahaan degmada Agabar waad mooday in gobolka intiisa kala horumar ahaan iyo ay ka go'an tahay ma dhaliilayo wixii laga qabtay laakiin waxay u baahan tahay halkaas in gaar loo yeesho degmooyinka kale ee xuduudaha ku yaala Allay baday iyo wajaale ay ku jiraan marka wax qabadka halkan ku arkay waxaad moodaysaa in uu yar badnaa horumarku magaaladeena waxaan idinka codsanayaa iyagoo walaalahay ku mahadsan idinku inaad baahisaan degmooyinka kale runtii gaadhaan inta marka laga yimaado xukuumadda cusub waxaynu nahay marka gobolada la eego gobolka ugu wasiirada badan leh dadku siyaabo badan buu xisaabtamaa qabaayil waa loo xisaabtamaa laakiin marka gobol la yiraahdo idinka ugu laandheeraysan halkaasaan ka bilaabay in abtiday Samson Maxamed Saalax wasiiru dawlaha caafimaadka ayaa joogta waxa halka ka kacay wasiiru dawlihi maaliyadda oo isaguna reer Gabiley waxa halkan shalay nala joogay Yunis Axmed Yunis oo isaguna reer Gabiley Maxamed Daahir baa jooga waxa jooga wasiiru dawlaha maaliyadda gobol intaas oo wasiir helay ma jirto waxaan xukuumadda ay tahay oo aniguna shakhsiyan aaminsanaa inay Gabiley noqoto Gabiley la wada leeyahay oo ummadda Ilaahay halkan ku dhaqay ay siyaasadda saamiga si fiican u qaybsato waxaan taa in si fiican madaxweynuhu noola qaatay oo uu tiray wixii dheeli ku jirayeen saami qaybsiga siyaasadda gobolka waan uga mahad celinayaa madaxweynaha qoladiina iminka imanaysa muxuu ahaa barasaabada iyo maayarkaba xilka idin yaala waxa weeye shaqooyinka inta ka hooseeya ummadda Ilaahay halkan ku wada dhaqay ku wada nool inaad u qaybisaan fursadaha iyo shaqooyinka iyo wixii kale ka soo baxa iyo mashaariicda horumarintaba sidaas aynu dadka u ballan qaadnay cadaalad baynu u ballan qaadnay wada jir baynu u ballan qaadnay wada jirkii Gabiley oo kamid ah deegaanada ugu ballaaran ee dadyoga ugu badan ku nool yihiin marka la eego xagga muxuu ahaa beelaha Sanaag iyo Gabiley way isku dhowdhowyiin dad badan baa ku nool waxaan walaalayaal idinku dardaarayaa inaad cadaalad ku shaqaysaan ummadda aynu dhulkan Ilaahay lagu wada beeray aynu wada leehayna shaqooyinka iyo fursadaha iyo wixii horumarin inaad u qaybisaan runtii waa dardaarankayga inta marka laga yimaado dad badan baa maalmahan Facebook goodo lahaa Xamsi